Bismillahi Raxmaani Raxiim. Saaxiibada soo dhawaada. Maanta waxaynu ka hadli doonaa dark webka ama deep webka waxa loo yaqaano. Marka waa internetka qarsoon. Sidaynu wada ognahay marka internetkeenan caadigeenu isticmaalo wax privacy oo qofku uu leeyahay ma jirto. Wixii lagaga baahdo ee xoga ee internetka ka galay oo la heli karaa hadday social media ga tahay, hadday Pinterest tahay, hadday website-yada booqatay tahay. anything aad kala samaysa internetka waa la heli karaa. Marka deep webka ama dark webka wuxuu kaga duwan yahay xogtaadu waa privacy bay inta u badan noqonaysa. Marka aad u isticmaasho deep webka waxa la adeegsadaa browser u khaas ah. browserka marka waxa la yiraahdaa Tor browser baa la yiraahdaa. Marka browserkaasi wuxuu ka caawinayaa inaad muxuu ahaa si censorship aad internetkii u dhex socoto meesha doonto gasho oo muxuu ahaa aan cidi ku tiragalin xitaa governmentka dawladda xitaa aanay ku dabageli karin oo aanay ogaan karin muxuu ahaa halkaad ku jirto iyo sida waxaad isticmaalayso iyo waxaad dowlgaraysanayso waxyaabahaas oo dhan marka uu isticmaasho deep webkooda ma si safe aad u adeegsato muxuu internetkaagii oo aan dabagal lahayn waxaad u baahan tahay Tor browserkan aad soo dowlgaraysato deedna simple waxaad qori doontaa marka aga search-ka ku qori doonaa Tor browser. Tor browser ku qorto aga muu keeni marka Tor project.organization ka ku dhufan doontaa linkiga koowaad marka uu keenayaa shaashadan haddana uu keeno marka Tor browserku wuxuu ku shaqeeyaa anything operating systemada ugu caansan ku shaqeeyaa afartaas hadday noqoto Windows hadday MacOS noqoto hadday Linux noqoto hadday Android noqoto intaas uu ku shaqeeyaa marka xaaladaada isticmaalayso marka aad ku jirto muxuu aad Windows isticmaalayso marka Windows ka dowlgaraysan hadday isticmaalayso MacOS kana MacOS ka dowlgaraysan dowlgaraysan hadday Linux isticmaalayso download badan Linux ka hadii kala Android oo mobilkii ama muxuu ahaa Google Chromebook marka waxaanu adeegsanaynaa muxuu ahaa Linux given isticmaalina marka waxaan soo dowlgarayn doonaa muxuu ahaa ka ku qoran tahay muxuu ahaa download for Linux deedna linkigaas ku dhufan doontaa linkiga markaad ku dhufato xagga muxuu keeni marka uu keeno wuxuu ku soo dhigayaa sidaas marka save file badan deedna okay marka maadaama aniga uu dowlgaraysan yahay si video waqtigiisa inoo koobnaado marka toos baan tagi doonaa markuu ku dhameeyo marka aad save file tiraahdo open ba marka hore taagan laakiin save ba dooranaysaa deedna okay wadanin marka ay tiraahdo download ba uu socon waa last 18 MB meelaha markuu ku dhameeyo waxa tagi marka download folderkaagi marka tagto open aad tiraahdo oo ka window dhex yaala marka waxa weeyaan waa zip way say zip-ka uga baabino waa in right click baan siini then extract here baan oran marka dad location kale inaad ku extract garayso extract to inta tiraahdo ee location kii dooran marka inaad location kii doorato ku weydiinaya laakiin marka inaga halkan aan iska extract garaysan marka wax yar baad ira sugi inta uu reading ku sameynayo in yar waqti yar bay qaadanaysaa dhowr daqiiqo aka extracting inoo bilaabay markuu saa ugu dhameeyo folderka aad dhex geli doontaa markaad folderka dhex gasho laba file baa dhex yaala uu loading gareynaya weli haduu marka hore kusoo dhigo intaad ka noqoto waad kusoo noqon folderka labada file marka kanaad ku dhufani kana double click siin deedna wuu wadira sugi intuu soo keenayo aga waqti yar bay qaadanaysaa culus yahay browseradan caadiga ah ee inuu isticmaalay waxaan isticmaalayaa Firefox marka kan uu culus yahay aga culus yar ayuu leeyahay marka saa kugu soo dhigo
connector marka inaad ku gasho muxuu ahaa mar walba always connect automatically la taabata way iska fiican tahay mar walba shaashadan ku weydiin maayo haddii aad doonayso inaad markaad gasho inaad connect siisana waad ka qaadi doontaa marka imika connect baan odhan si uu inoo connect gareeyo serveradii Tor-ka serveradii privacy-ga ilaalinayay connect baan odhan waan yara sugaynaa marka connecting again waata noo socoto loadingkaas halkaa inoo dhameeyey saaxiibaad aragtaan markaa waa iska muxuu ahaa waa interfacekiisu waa standardkii muxuu ahaa browserada naqaanay laakiin isagu wuxuu kaga duway markaad doonayso inaad booqato website-yadiisan privacy-gaaga ilaalinaya .com ku geli maysid extension-ka u dambeeya waa .onion midda kale magaca muxuu ahaa website-ku wax la fahmi kara maaha markaa si aad muxuu ahaa aad u hesho waxaad qori doontaa Tor links saad linkiyada u hesho marka Tor links baad qori bedelo sugi Tor linkska muxuu ahaa waa kuwa linkiyada ayaad deep web Tor browser iyo wuxuu jeedaa muxuu ahaa search engine u khaas u leeyahay markaa waad ku dhufan doontaa ka ugu badan ee ku siinaya muxuu ahaa linkisyada ka ugu badan ee ku siinaya markaa uu ku fasiraya linkigaasi waxa uu qabtaa waxa uu yahay haddii marka hore aad ugu soo tala gashay oo aad meel u socotay oo doonaysay in marka hore aad sii ogid waxa linkigeeda iyo wax lagu galayo marka tani waxa weeyaan maalinta ugu horeysa ee soo gasho inaad muxuu ahaa ogaato muxuu ahaa sida loo galo waxaan ka arkayno waa kuwa muxuu ahaa isaga muxuu ahaa linkiyadiisu waxa dambeeya .onion imika haddii aynu eegno waxaynu eegi Allahumma salli ala Muhammad zmoves kaas baynu eegi bal linkigiisa aynu qaadan markaa inuu noo shaqeeyo iyo in kale markaa aynu koobiyesan amaba open link new tab baynu odhani dadna new tab inoogu furi markaa yaro xayisiinaya fashion Onion sites yaro xayisiisa laakiin inagu xidhi doonaa muxuu ahaa website-keen dooranay markaa intiina daawatay musalsalka ama filimka serious-ka ee la yiraahdo Money Heist hubka ay ku dagaalamayaan ama bilowga ama qaybaha dambe ee hubka badan ay haystaan waxay ka iibsanayaan dark web iibay galayaan iyagoo adeegsanaya muxuu ahaa Linux bay adeegsanayaan deedna Tor browser bay adeegsanayaan hagaas markaas kaga xidhmayaan dadkii iibinayay muxuu hubka sharci darrada marka anything aad u baahato oo sharci darro ah oo laga helin muxuu ahaa website-yadan ama internet-ka caadiga xaggan ku jira marka waxa weeye inaad xoogaa overview ka haysato
wixii dambeed igu baahataana commentkaad igu sheegi doontaan aad baad mahadsantihiin. That's the way it is. That's the way it is. Damn.